أولا بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalahayga qaaliga meel walba intaad caalamka ka joogtaan waxaa idinku salaamayaa salaamta muslimka waxaa idin leeyahay walaalahayga qaaliga sida quruxda badanaa iila socotaan waa idinkaga mahad celinaya waxaa idin leeyahay walaalaha igu cusubna ii soo dhawaada channelka waa channelkeena ilaahay idankiis waxbaa ka faa'iidi doontaa ana waxbaan kaa faa'iidi doonaa walaalaha kale inta oo hore ila joogi jireen waxaa idin leeyahay jazaakumullahu khayr sida quruxda badan ii dhiirigelisaan kommentiyaasha quruxda badan iyo sida ay igu ducaysaan waa idinkaga mahad celinaya ilaahay maalinta qiyaamo oo la qartan yahay oo la qaawan yahay rabbi kuwa u shafeeca ha idinka yeelo ilaahay casiiska cisaa wajallaha ah hooyo walba meesha ay ka tabanaysa rabbi ha ka tiirsho gabar walba inta oo Soomaaliyeed waxa ay ku hamweyn tahay oo rajadeeda ay tahay ilaahay u rumeeyo walaalahayga qaaliga ah hal week dhan video ma soo duubin aad ayaan u mashquulsanaa baryahan oo dhan waxaan sameynayay shaqooyin ayaan ku mashquulsanaa alxamdulilah ilaahay ayaa mahad iyo shukr iska leh waan soo dhameeyey sida aan rabay ay rajadeyda ahayd ayayna iigu dhammaatay alxamdulilah ayaan leeyahay walaalaha qaaliga ah walaalahayga qaaliga ah maantayta waxaan rabaa inaan mashquulkayga iyo shaqooyinkayga ka bacdi waayo dad ayaa isoo weydiiyeen xagee umu aliisha aaday thank you so much sida quruxda badan iiga walwashaan waxaan rabay inaan maantayta idin dhaho walaalahayga qaaliga ah samirka meesha lagu gaaro ayaan rabay inaan gabdhaha ama wiilasha ama qof walba inta oo bini aadan oo samirka sida uu qurux badan yahay marka aad samirtid iyo sida marka aad samirtid looga gaaro guul walbeenta waxaa daba yaalo waa samir haddaad samirtid insha allahu biidmillaahi baari guulahaaga dhan waad gaaraysaa waayo adduunyadu waa caqabad miiran marka aad dhibaataysan tahay oo aad dhiban tahay ha isdhihin rabbi dhibkan ayuu kugu daynayaa no laguguma daynayo walaasheeda ama walaalkayga waa ciqaab yariis ah waxaa lagu tusinaya bini aadan ayaan nahay waanu kibir badannahay waanu takabur badannahay markii aad xanuunsato ama markii aad waxweydo ama markii ay nolosha si kaa noqoto waxaa lagu tusinayaa waxaa lagu soo xasuusinayaa who you are iyo where you come meeshaad ka imaaday iyo qofka aad tahay waa inaad rabbiga u orodid waa in aad rabbigaaga xasuusatid waa inaad samirka aan ku dadaalno ilaahay idankiisa dunidan maantayta aan joogno haddaadan u samrin oo wax walba inta aadan kasii dhaqaaqin maantayta hadday dhib kugu dhaco haddii xaaskaaga kugu xumaato hadduu ninkaagu kugu xumaado haddii awlaadu ay si kugu noqoto kulli waxaas oo dhan waxaa uga gudbi kartaa baryada rabbi iyo samirka marka aad rabbi barido oo aad samirto damoo aad samirto oo damoo aad rabbi barido waa damoo aad guul gaarayso guul walbeentana waxa gadaasheeda yaalla waa samir ha isdhihin maantayta ninka daaraha iskale isagoo lacagta dhug ayay usoo tiri no waxaa laga yaabaa inuu hoos kasoo bilaabay nolosha aaskeeda hoose uu ahaaba nolol aad u adag ama aad u dhib badan inuu qofkaas bini aadanka uu kusoo jiri jiray shalay laakiinse maantayto uu ilaahay samirkiisa iyo heerkaas ku gaarsiiyey maalin dhaweeto intaan shaqooyinkayga ku gedi jiray meel ayaan alaab ka dirayay naagama meesha isla fadhini soo waa iswarwareysanay waa aragta bini aadanka markay meel isla fadhiistaan sheekadan hadda kasoo dhexgeliyay markay meel isla fadhiistaan waa iswareystaan naagta ayaan waxaan weydiiyey how long ayaa waayo markaa waxa sameynaysid qofka inteed ku jirta shaqadan iyo waa la wareystaa how long ayaa hawshaan haysa markaas waxay igu tiri almost 2 years hadeertaan aan shaqadan hayaa haye shaqadan sidee tahay way fiican tahay aniga waxay tiri waxaan kasoo bilaabay waxay tiri 3 ilmood ayaan haystay istakfura 2 ilmood ayaan haystay igu tiri waxaan gedi jiray daango waxay tiri noloshayda meesha ugu adkeyd waqti ee ugu adkeyd ayaa isoo martay laakiinse waxay tiri alxamdulilah maantayta waa kasoo gudbay waan soo samray maanta heerka aan taaganahay waxay tiri guusha aan maanta haystay tiri waa guul taabasho leh waxay tiri guri aan leeyahan deganahay waxay tiri baabuur aan leeyahan wataa naagta saas iigu sheekaynayso waa naagaal ah imagine qofka ku dhahay aniga qof muslim ah samirka u sheegay soo maxaa adiga u maraysa adigoo muslim ah oo muslimnimo ku dhashay oo ilaahay yaqaana oo inaad samirtid inaad dhib walbeento oo nolosha kusoo mara lagu imtixaamayo ina ay tahay adigoo marka cunuga kaa jirado waa lagu imtixaamaya waayo ilmahan waa ilmo saqiir ah wax uu sameeyey ma jirto laakiinse hooyada ayaa lagu imtixaamaya haddaa dhabanada iska garaacdido dharka iska jeexjeexdido oo tiraado hoogayo baayo sidee waxaan iigu dhaceen the next day markii lagaa qaatana de maxaa qof walba inta markuu qofka dhinto maxaa u dhahanaa samir iyo imaan allah kaasi waayo samirka
waa shayga ugu qaalisan qofka bini'aadanka iimaankiisa ah oo qofka muslimka ah caddaynaya inuu muslim khaalisa yahay waa samirka. soo walaalahayga qaaliga ah waxaa idinkala dardaarmaya aanu isku samirno, aanu isku dulqaadano. gabdhaheena soomaaliyeed gabadha kale inta walaashaa u samir. waxaa laga yaabaa maanta inay inta gabar u timaado ama hadal ay ka qaado ama dhib u geysato ama ay wax ku dhufato, ilaahay dartiisa ugu samir. ilaahay dartiisa ayaad heer adigana ku gaaraysaa ilaahay idankiisa. waxaa laga yaabaa qof inaad daristihiin oo qofkaasi dhiban yahay, maanta haddaad caawiso ha ku caynin, waayo ilaahay dartiisa ayaad wax ugu qabatay. waayo asagaba dhibaatadaas haysa waxa dhibkaas haysta adiga dariska la ah ayaa lagu tusinaya. imtixaanada adduunka waa lagu imtixaanaya. rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu subaxdii soo tooso 100 guri oo darisa ishiisa inta ay qabato ayuu bariidin jiray. maantana waxaa laga yaabaa adiga inaad dharagsan tahay, dariskaagan uu baahan yahay aanan war iska haynin. waxaa laga yaabaa inuu dariskaaga xanuunsan yahay aanan war iska haynin. soo adduunka wuxuu iska noqdayba adduunye imtixaan ah. soo imtixaanadan sidaan ugu gudbi lahayn waa inaan isku samirna ilaahay idankiisa. walaalahayga qaaliga hala isku samir. had qofkii ku caayo u samir, kii adigu wax kaa sheega adiga guul kuu tahay. haddaba aragtidba in wax lagaa sheegaya de qof horeeyaa tahay oo guulaystay, guul ayay ku tahay. waxba ha ka cunaa, waxba ha ka xumaanin, waxba yaysa ku damqinin. wixii ku damqiyana de bini aadanaa tahayo baranbare ma tihid, dhiig la-aan ma tihid. waxbay ku damqinaa, wixii ku damqiyana adigu dadaalkaaga iyo juhdi waxaad ku bixisaa sidii aad waxaas ugu samri lahayd. ilaahay idankiis walaalahayga qaaliga waa walaashin Arisha idin dhahays. walaalahayga qaaliga waa idin jeclahay. ilaahay xaqa hana waafajiyo. ilaahay kuwa isku samra oo xaqa isku dardaarma rabbi hanaga dhigo ilaahay idankiisa. ilaah waxaan ka baryaynaa hooyo walbeento oo soomaaliyeed meesha ay ka tabanaysa rabbi ha ka tiirsho. qof walbeento oo ilaahay wax ka sugaayana ilaahay waxa uu ka sugayay si khayr badan ilaahay ha ugu soo dedejiyo ilaahay idankiis. walaalahayga qaaliga ah duco badan waa la iiga fiican yahay xoogaa intii aan ka saayo ayaanu mar walbeentana waxaan jeclaa inaan hooyada u duceeyo. waayo maanta siduu burburka noo saameeyey hooyooyinkeena soomaaliyeed waa iska dhimanay. soo mar walbeento waxaan jeclahay gabar ayaa ugu tiri adiga fiira baa duco badanida hooyoyaasha maxaa ugu duceysaa. taas xataa hadday eed noqotay aniga I don't care, laakiinse mar walbeento u duceynayo hooyo soomaaliyeed meesha ay ka tabanaysa rabbi ha ka tiirsho. wabilaahi towfiiq ayaa idin leeyahay walaalahayga qaaliga waxaa idinkaga tegayaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu.